wadadani waxa weeyaan wadadii airportka gelisay xaggan in sha Allah wax loogu talagalay si ka dhaxayso wadadan 3 bilood gudahood baa lagu dhisay waa 1 kilometer oo balcad tahay 7 mitir waxa la geliyay laba buunda ayaa ku jira buunda jiif weeysan Irish Bridge buunda kalena waxa ku jira dhaxbarta 500 mitir meel ah oo kal fartay wadadan quality-geeda aad baa loo ilaaliyay maadaama ay wadada ugu muhiimsanayd si wanaag waxaan ku guulaysanay wadada sida ahayd sameeyna oo ilaalina quality-ga wadada ayalaha ku soo kordhay wadadan waxa kamid ah shub u dhaxeeya labada wado kala celinay oo shuba laakiin Soomaali waxa uu yahay kaabadii kala celinaysay labada wado oo kala xagaysay hadii la yiraahdo madaxweyne ku soo dhawow waxaan fariisay shirkadda Albashir iyadoo ay maalgelisay JPLG iyo dowladda hoose بسم الله الرحمن الرحيم ودادان waxa weeye laba haad bay ahayd haadka hore waxa weeye qandaraas hore lagu bixiyay waxa yaro bista kale baa ka yimi waxaan aad iyo aad hortaadaan uga mahadcelinahay shirkadda Albashir ee fulisay kii horena dhameystirtay kii ay qandaraaska ku qaateen dhameystiray hortaadaan uga mahadcelinayaa muddada aanu gobolka iyo degmada aanu joognana meelo badan oo muxuu ahayd wadooyinka kamid ah mashaariic badan ka fuliyay waxa kale oo wadada aanu ku daray markii aan duqa magaalada iyo golaha deegaanka iyo wasaaradda aanu tasharnay in dawladda hoose lacag geliso inta dhexda ah oo labadii haad la kala saaro waxaanu raacinay oo wado walba ku dul abuuray intay socdeen in loo helo light wada mugdi waxba tarimayso waad arki doontaa tan hadda aynu taaganahana waa ka solarki tan madaxtooyada ka soo baxdana ilaa madaxtooyada irideeda solarki baa taagan oo muxuu ahayd waa gelinay tanna waxay ka qayb qaadanaysaa socodkii muxuu ahayd garoonka iyo magaalada bilicdii magaalada dhinacyadana waxaan rabnaa wixii aanu ka qaban karo awoodda dhaqaale ay masaabaxdo iyo dadaalba inaanu muxuu ahayd marshabiyeedana aanu baalkeeno waxaa kaloo farxadii ah maralaale markaad gobolkan iyo degmada timaado inaad la kulanto mashaariic ama aad dhagax dhigayso ama aad furayso oo dhamaystirtay waxaan kaloo farxadii ah oo aan marxaati u gashanayaa gobolkan iyo degmadani inay isbeddel weyn uu ku yimi runtiina waxaan uga mahadcelinayaa maamulka gobolka iyo degmada mid nabadgelyo iyo mid maamul dirkaba waxaan kale oo aan kuu sheegayaa madaxweyne runtii maralaale markaad soo noqoto waxa ballana in aad annagoo hawl hayna wasaaradda iyo maamulkeeda degmada iyo gobolku aad la kulmi doonto waxaana kuugu bushaaraynayaa aynu ku ballamaynaa wasaaradda iyo maamulkeedu waxa weeye hadal yar iyo hawl badan ma hadallo annagu iyo ma hadiyo goor dadkaas meelaha fadhi ku dirarka iyo iska hadlo meelaha kuu yimaada ma nihin laakiin waxaa hawl baanu intaa ku fooganahay marka madaxweyne mid kalena waynu furi doonaa haddii alla yidhi waxaan ka baqayaa inaad daasho mashaariicda halka ka wada waa kugu soo dhaweynaa ka mahadnaqayaa horumarka degmada ku talaabsanayso waana ugu mahadnaqayaa gaar ahaan madaxda degmada iyo gobolka shaqada fiican ay hayaan aad bay ugu mahadsan yihiin intan la shaqeeyana sida wasaaradu ka mid yihiin iyo hay'adaha kalena waa ku mahadsan yihiin dabcan jidadku muhiimad gaar ay leeyihiin oo ah waxay ka qayb qaataan nolosha dadka waxay muhiim u yihiin ganacsiga iyo socodka gaadiidka waxay u muhiim yihiin quruxda iyo bilicda magaalada waxay muhiim u yihiin amniga iyo kala dambeynta sharciga ay intaba muhiim u yihiin marka in boosaasu jidad badan yeelato aan marin intaan joogo intaan jid furay labada sano marinaya aad bay u tira badan yihiin magaaladan isbedel runtii waxaa ka muuqda sideed jid baa yani intaan joognay la sameeyey kuwa kalena waa filana insha allah inay ka bilowdaan magaaladan magaalo muhiim ah oo caasimadda ganacsiga Puntland ah inay waji qurux badan yeelato oo dadku ku soo hirtaan wax loo baahan yahay shirkadda fulisay wanaaggeeda tayada ka sheekayseena aad bay u mahadsan shaqada fiican ay qabteen waan ku dhiirigelinaynaa in asaas oo kale kuwa kale shaqo fiican u qabtaan hadii la yiraahdo guriga qeyb barajeynaya mashaariic tira badan iyo magaalada isbedesha iyo boosaaso meel walba jid ka baxaan rajeynaa mashaariicda dalka inta kale la gaarsiiyo
waxaa la rabaa in la qaybiyo khayraadka dalka marka inta kalena waa rajeynayna waan ogahay magaalooyin badan oo kale sidoo kale jees fiican baa ka socda laakiin meel kastoo puntland ahi dadku waa isku xuquuq waana isku waajibaan marka waan rajaynaynaa in mashaariicdu inta kalena ay gaarto aad baan kaga mahadnaqayaa soo dhawaada aad mahadsantihiin